بسم الله الرحمن الرحيم weerar lagu qaaday qaybo kala duwan oo kamid ah wadanka Iran ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare lixaad leh Iran oo amar dul dhigta Xuutiyiinta isla markaana soo jeedisay haddii Mareykanka uu qaado weeraro taabanaya kaabayaasha dhaqaalaha inay xiraan marinka Baabul Mandab kooxda Xuutiga oo degniin adag u jeedisay wadanka Sacuudiga hogaamiyaha ugu sareeya ee kooxdaasi waxa uu leeyahay haddii garoon kamid ah dhinaca Yemen la weeraro waxa uu Sacuudiga la kulmi doonaa weerar kuwaas u dhigma haddaba ma waxa la gaaray xilli xiisadu ay faraha ka baxayso wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran oo eedayn kulul u jeedisay caawa wadanka Mareykanka haddaba maxaa lagu eedeeyay gantaalo Mareykan oo ku dhacay goobo ku yaala jasiiradda Qasham ee koonfurta wadanka Iran Pakistan oo soo jeedisay dhinacyadu in ay qaataan wada xaajood isla markaana ay joojiyaan dagaalka iyo waliba qaybo kamid ah magaalada Dubai oo caawa laga soo sheegayo inay qaraxyo ka dhaceen oo dawladda la yiraahdo Iran ay weerar ku qaaday wadankaasi Sultanka Imaaraadka madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance waxa uu eedayn u jeediyay dhinaca wadanka ama nidaamka Israel qodobadaas iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee gobolka ayaan khiyaaray ku eegi doonaa barnaamijka guud ahaantiiba caawa Mareykanka ayaa caawa duqeyn culus ka geystay qaybo kamid ah wadanka Iran sida ay ku waramayaanba warbaahinta maxalliga ah ee dawladdaasi meelaha la weeraray waxaa kamid ah jasiiradaha Bandar Abbas oo ay degan yihiin ciidamada ugu awoodda badan ee dhinaca badda ilaalada kacaanka ee dawladdaasi iyo waliba qaybo kale oo kamid ah jasiiradaha sida Qasham oo kale halkaas oo caawa la soo sheegay inay qasaarooyin waaweyn ay ka jiraan telefishinka dawladda Iran ayaa waxa uu sheegay in gantaal uu Mareykanku riday uu galinkii dambe ee maanta ku dhacay deegaanka loo yaqaan Masen oo ku yaala jasiiradda Qasham oo ka tirsan gobolka Hormuzgan ee koonfurta wadanka Iran sidoo kale maamulka gobolka Hormuzgan ayaa xaqiijiyay in gantaalka Mareykanku ay ku dhaceen goobo ku dhow magaalada istiraatiijiga ah ee Bandar Abbas oo ah dekadda ugu weyn ee wadanka Iran uu ku leeyahay marinbiyoodka Hormuz halkaas oo iminka ay muuqanayso Mareykanku in uu qaadayo tallaabooyin la xiriira sidii dagaalka uu si ballaaran lahaa wararka hordhaca ayaa tilmaamaya in bartilmaameedyada la weeraray ay ku yaalaan deegaano muhiim u ah howlgalka militariga iyo kuwa badda inkasta oo aan wali si rasmi ah loo shaacin qasaaraha ka dhashay duqeymaha dhinaca kale ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymo cusub oo ka dhana bartilmaameedyada Bandar Abbas taas oo qayb ka ah xiisadda in ay caawa cirka isku sii shareerto duqeyn adag ayaa lagu soo waramayaa caawa inay ku socoto wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlay bartamaha suuqa ganacsiga ee adduunka ee Dubai halkaas oo la sheegay gantaalo ka yimid dhinaca wadanka Iran iyo diyaarado iswada in lagu garaacay caawa dawladda Abu Dhabi wali kama hadlin weerarka lagu qaaday qaybo kamid ah wadankeeda wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran waxa ay Mareykanka u soo jeedisay eedayn culus oo ku aadan in uu majaxaabinayo hanaankii wada xaajoodka iyo heshiiskii hore loo gaaray sidaas darteedna wax kasta oo dagaalku uu sababo lagu eedayn kara baa leeyahay dawladda Mareykanka in ay sabab u tahay wasiirka amuraha dibadda Iran ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ay soo xoojisay weerarada ay ku hayso dalka Iran isla markaana ay ku soo rogtay go'doomin dhinaca badda ah wasaaraddu waxa ay tallaabooyinkan ku tilmaameen jabin cad oo lagu sameeyay heshiiska afgaradka ee hore loo gaaray bayaan ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Iran ayaa lagu yiri maamulka Mareykanka waxa uu kordhiyay weerarada ka dhanka ah dalkeena waxana uu ku soo rogay go'doomin badeed taas oo si cad uga hor imaanaysa baa leeyahay heshiiska afgaradka Iran ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan dalalka gaar ahaan wadamada dariska ah ay saaran tahay mas'uuliyad ku aadan dawladda Mareykanka iyaga in ay gacanta ku qabtaan wardegdeg oo hadda dhinaca Iran ka imaanayana waxa la soo sheegayaa qaraxyo kale inay ka dhaceen oo weerar ah jasiiradda Qasham ee dalkaasi Iran wakaalada wararka ee dawladda Iran ee Mehra ayaa sheegtay in gantaalo Mareykanka uu riday ay ku dhaceen
goobo kala duwan oo ku yaala jasiiradda Qasham oo dhacda koonfurta waddanka Iran ilaa iyo hadda lama shaacin goobaha la beegsaday iyo khasaaraha ka dhashay laakiin tabinadeena kale ayaan idin kula wadaagaynaa khiyaarta soo socota nala socota wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku waramaysa in amar culus la dul dhigay kooxda Xuutiga ee waddanka Yemen taasoo la xiriirta duqeymaha lagu haya waddanka Iran haddii ay sii ballaartaan isla markaana la duqeeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida kuwa korontada oo kale in kooxda Xuutigu ay guud ahaantiiba joojiyaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta baabilmandab isticmaalaysa taasoo qatar weyn ku noqonaysa dowladaha waaweyn ee gobolkaasi wada yaala sida ka muuqanaysaba dooda dowladda Iran ee caawa sii daysay wakaaladda wararka ee Reuters oo xiganaysa saddex ilo wareed ayaa sheegtay in dowladda Iran ay Xuutiyiinta u direen amar ah in ay isu diyaariyaan xiritaanka marinbiyoodka baabilmandab ee badda cas haddii Mareykanka uu weeraro kaabayaasha tamarta iyo shabakadaha korontada ee waddankaasi Iran ay leedahay sida warbixinta lagu sheegay Tehran ayaa qorsheynaysa in ay u aragto tallaabo jawaab celin ah haddii Washington ay ballaariso weerarada ayna ku beegsato xarumaha tamarta ee dalkaasi Iran baabilmandab waa marin istiraatiijiyadeed oo muhiim ah oo isku xira badda cas iyo gacanka cadmeed waxaana mara qayb weyn oo kamid ah ganacsiga caalamiga iyo maraakiibta shidaalka xiritaankiisana waxa uu saameyn ku yeelanayaa geediga ganacsiga iyo suuqa tamarta ee adduunka iyadoo horey dowladda Iran tallaabooyin ay u qaadeen caalamka ay ku hayeen khatar weyn kadib markii dowladdaasi ay joojisay isticmaalkii marinka Hormuz oo ay hadda ku cadaadinayso dowladda Washington haddiise marinkan baabilmandab la xiro waxay ka dhigan tahay guud ahaanba marinadii ugu xasaasisanaa adduunka in hadda xayiraad lagu soo rogay taas oo saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo nolosha dowlado fara badan oo caalamka madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka JD Vance waxa uu si weyn u dhaliilay nidaamka Israa'iil oo ku tilmaamay in ay ka shaqeeyeen fashilinta wada hadalkii lagula jiray dowladda Iran sida hadalkiisa uu dhigay Vance oo galka wada xaajoodka gacanta ku hayay ayaa iminka waxa uu muuqanayaa in ay si weyn loolan xoogan ay uga dhaxayaan dhinacyada hadda ay sida adag isku hayaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa sheegay in Israa'iil ay dhaqaale aad u badan ku bixisay isku day lagu weeqayo wada hadalka ay Washington la lahayd Iran Vance ayaa sidoo kale ku eedeeyay Israa'iil inay sumcadil ku samaysay dadka dadaalka ugu jiray in heshiis laga gaaro khilaafaadka u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladdaasi Iran waxa uu tilmaamay in dad badan oo helay baaliri dhaqaalahaasi ay isaga u weerareen siyaabo uu ku tilmaamay kuwa gabi ahaanba aan daacad ahayn oo dowladdaasi Tel Aviv ay dhibaatooyin ku tahay sida wararka ay tilmaamayaan bacaawa warbaahin kala duwan ay xaqiijinayaan tani waxay ka dhigan tahay in xiisadda gobolku ay hadda aad u sii socoto hadalkan ayaa muujinaya khilaafka weyn oo dhaxmaraya Washington iyo Tel Aviv gaar ahaan qaabka lagu wajahayo wada hadallada iyo heshiiska suuragalka ah ee lala gaarayo dhinacaasi iyo Tehran dowladda qadarna waxay cambaareen kulul u jeedisay waddanka Iran iyadoo ku eedeynaysa duqeymaha kala duwan ay ku hayso qaar ka mid ah dowladaha ku yaala gobolka oo ay ku tilmaantay inay tahay mid aan la aqbali karin war ka soo baxay dowladda Qatar ayaa lagu cambaareeyay weerarada soo noqnoqday oo ay Iran ku qaaday dalalka Jordan, Bahrain iyo Kuwait iyagoo ku tilmaamay xadgudub cad oo ka dhana madax banaanida wadamadaasi iyo jabin weyn oo lagu sameeyo xeerarka sharciga caalamiga bayaan ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Qatar ayaa lagu adkeeyay baahida loo qabo gobolka si loo ilaaliyo cawaaqibka ka dhalan karaya weerarada aan marbarsiyada lahayn baaliri ee qatarta weyn abuuraya wasaaraddu waxay ku baaqday in la sii wada hadallada iyo diblomaasiyadda lana yareeyo xaaladda dhibaatooyinka iyo waliba xiisadda sii kululaanaysa ee gobolkaasi ka jira Qatar ayaa sidoo kale amar markala xaqiijisay baaliri baaxadda xadgudubyada in ay yihiin kuwa aad u sii xanuunjinaya dhibaatooyinka ka taagan gobolkaasi
kooxda xuutiga ee wadanka Yemen ayaa hogaamiyaha ugu sareeya Cabdimalik al-Xuuti waxa uu caawa digniin la yaab la u diray dowladda Sacuudi Arabiya isagoo ku tilmaamay haddii duqeymaha ay sii ballaariyaan inay ka dhignaan karayso weerarada kooxda xuutiguna in ay meesha soo galayaan haddii garoon la weeraro waxaynu bixin doonaa awaamiir la xiriira in looga jawaabo taasi mid u dhiganta ayaa lagu yiri warka kooxda xuutiga caawa ay sii daayeen hogaamiyaha kooxda xuutiga ee wadanka Yemen Cabdimalik al-Xuuti ayaa ku hanjabay in kooxdiisa ay weerari doonto xarumaha shidaalka iyo goobaha muhiimka ah ee Sacuudiga haddii Riyaad ay weerarto baaliri dhinaca wadanka Yemen khudbad uu telefishinka ka jeediyay al-Xuuti ayaa waxa uu ku yiri garoomada diyaaradaha waxa looga jawaabayaa garoomo kale oo diyaaradeed dekadana waxa looga jawaabayaa dekado go'doominna waxay la macno tahay in go'doomin kale la sameyn doono waxa intaas ku daray in dhammaan xarumaha shidaalka iyo goobaha istiraatiijiga ah ee Sacuudigu ay noqon doonaan bartilmaameedyo ay beegsan doonaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta haddii Sacuudigu uu weerarka sii ballaariyo weeraradii isdaba joogga ahaa ee ka dhacay qaybo ka mid ah Sacuudiga iyo Yemen ayaa loo arkaa inay tahay mid xiisada gobolka bariga dhexe dab kale oo hor leh ku sii shidaysa isniintii Xuutiyiintu waxay gantaalo iyo diyaarado drone ah ku weerareen garoomo caalami ah oo ay ka mid tahay Abha oo ku yaala koonfurta wadanka Sacuudiga kooxdu waxay sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa duqeyntii ay dowladda Yemen oo ay taageerayaan isbahaysiga uu hogaaminaya Sacuudiga lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca xilligaas oo ay ka dageysay diyaarad dowladdaasi Iiraan ay lahayd oo wafuud Yemeniyiin siday oo Xuuti ah iswadaasiga weerarkan ayaa noqday kii ugu horeeyay ee labada dhinac dhaxmaratan iyo sanadadii soo socda baa la yiri xabad joojintii dheeraa oo iminka u muuqatay inay burburtay xiisada duulimaadyada Iiraan iyo Sanca ayaa waxa ay noqotay mid dowlado fara badan oo Carbeed walaac weyn ku haysa wararka ayaa sheegaya in dowladda Yemen ay beegsatay gobolka Sanca si ay uga hortagto diyaarad ka timid baa la yiri Iiraan oo sidee wafdi ka tirsan Xuutiga oo ka soo laabtay magaalada Tehran dhinaca kale isbahaysiga uu hogaaminaya Sacuudiga ayaa wali gacanta ku haya hawada Yemen taas oo ka dhigan in shirkadaha diyaaradaha ay u baahan yihiin ogolaanshiyo ka hor inta aysan ka degan garoomada wadamadaasi si kastaba haatee Xuutiyiintu waxa ay muujinayaan in ay doonayaan inay bilaabaan duulimaadyo toos ah oo u dhaxaysa Iiraan iyo Sanca arrintaasi oo sii kordhisa xiisada u dhaxaysa Sacuudiga iyo waliba dhinacan kale ee ka soo horjeeda ee Xuutiga dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku warantay iyana inay soo riday diyaarad kuwa iswada ah oo dowladda Xuutiyiintu ay tuureen goor dhow markii weerarka uu bilowday hase ahaatee kooxda Xuutiyiinta qudhooda waxay ku jawaabeen in sidaas oo kale ay soo rideen diyaarado dowladda Sacuudiga ay leedahay afayeenka militariga Xuutiga Yaxya Sariic ayaa sheegay in salaasadii ay soo rideen diyaarad kuwa iswada ah oo Sacuudiga uu leeyahay isla markaana lagu soo riday buu yiri hawada gobolka Al-Bayda halis ku wajahan xabad joojinta ayaa noqonaysa mid hadda aad u taagan oo laga baqayo dagaalka Iiraan in ay beeriyaan dagaalada ka bilaabanaya xeebaha badda cas dowladaha ku yaala falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in dib u cusboonaanshiyaha dagaaladan uu qatar gelinaya xabad joojintii la gaaray sanadkii 2022 dagaalka Yemen ayaa socday in ka badan 10 sano waxna ay sababtay dhimashada 100,000 oo qof waxa dalka la galiyay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadanimo ee ugu darnayd iyadoo ay u muuqato in xaaladan ay xitaa qaramada midoobay u aragtay in ay ka halis badan tahay sidii hore